daawadayaal halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa hadaladii taariikhda galay ee madaxweynayaashii Somaliland soo maray ay ka yiraahdeen arrinta aqoonsiga iyo waliba jiritaanka qarannimada Somaliland waxa kale oo iyana kamid ah gudoomiyaashii baarlamaanada ee Somaliland soo maray wasiiradii arrimaha dibadda iyo waliba dad magac ku lahaa Somaliland dhamaantood waxay ka hadlayeen qadiyadda Somaliland iyo ixtiraafka Somaliland iyo midnimadii 60kii ama sida Somaliland iyo Soomaaliya ay u midoobeen waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweynihii hore ee Somaliland maxamed xaji ibraahim cigaal daahir riyaale kaahin madaxweynihii saddexaad ee Somaliland soo mara axmed maxamed maxamuud siinaayo madaxweynaha afraad ee Somaliland soo mara muuse bixi cabdi madaxweynaha shanaad ee Somaliland wasiirka arrimaha dibadda ee xilligaasi maxamuud saalax nuur fagare oo dowladii maxamed xaji ibraahim cigaal wasiirkiisa arrimaha dibadda ahaa axmed maxamed aadan qaybi gudoomiyihii baarlamaanka Somaliland markaasi isna xiliyadii 79 ilaa 2005 ahaa gudoomiyihii baarlamaanka siyaasi weyn oo wasaaradda arrimaha dibadda xilal badan ka soo qabtayna soo maray adnaadan ismaaciil oo iyana xiliyadii daahir riyaale oo madaxweynaha ahayd wasiirka arrimaha dibadda Somaliland markii horena ahayd wasiirka qoyska iyo arrimaha bulshada dhakhtarad in badan Somaliland soo shaqeynaysa ah imikana ah ergeyga Somaliland ee wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo fara badan nala daawada waxaan leeyahay kursigan maanta jooga dadiisana waxba ka harin ma kursi wareegtaa weyn kursi nina leeyahay ma kursi nina ikhtiyaarkiisa ugu fadhiya ma ikhtiyaarka ummaddu ku fadhiya kiisa ma aha innaguna waxaynu go'san inaynu isku xukunno ma isku doorno fard gacantaag xabad maaha xabadda waa saalan in la isku qabsado afweena wayna ku qabsado waa degdeg bay leedahay kan qaba amar bixi way ka dhaqso badantay waxqabadka marka hore muxuu ah dimuqraadi waayo xukun dimuqraadi talo iyo arrin iyo kan muxuu ahaa soo geli oo bartele geli way gaabisaa kan isagoo ninkeedu wixiisa ku dhaqaaqaya laakiin waxay keentaa xabad iyo qori waataynu hargeysa ka arkeen waata wixii muxaayna soo maray Soomaaliya ka arkeen marka xukun dimuqraadiga inaynu ku dhaqanno oo adkeenno iyo ku fiican ركزنا عليه بدء أولا أن يستتب الأمن والنظام أن تتوفر هذه المؤسسات وبعدها يعني بمعنى أن يكون لنا اعتراف من قبل الشعب لأن العلاقات الخارجية هي بمثابة مرآة للوضع الداخلي فالحمد لله كل هذه المقومات الآن توفرت وبدأنا في هذه السنة فقط أن نقوم باتصالات دولية الهدف منها كسب الشرعية الدولية. We support the territorial integrity of Somalia, but what is Somalia? That is the point to be answered, you see. We have never been citizens of a country called Somalia. Somalia, the name Somalia comes from the Italian syntax. It used to be called, Somalia Italiana. After the war in 1915, when the country became under the United Nations trusteeship, Italia was dropped and became simply Somalia. We were Somaliland. They were Italian Somaliland. We were British Somaliland protected. We united in 1960 and we have formed what is registered in the United Nations, in the OAU, in the Arab League as the Somali Republic. The idea of Somalia was never really our country. It was one of the first dirty tricks which our brothers in the South have used, have used against us. They have imposed their name, on us. inay wax samaystaanna waan la jecelahay halka aan gaarnay inay gaaraanna waan la jecelahay marka ugu horeysa laakiin taladu waxay taalaa tii markii ugu horeysa aan ku bilaabo in la fadhiisto oo la yiraahdo war maxaan isku haysanaa aan heshiino oo inagu gudaheena aan ka heshiino waxyaabaha ka qarinaya koonfurta Soomaaliya inay xaqiiqda u noqdaanna waxa kamid ah waxay raadinayaan dawladdii Soomaalidan raadinayna iyadoona tii hoosaba aan la raadin horta tii hoosaha raadiyaan bal koonfurtii Soomaaliya raadiyaano
maamul koonfurta Soomaaliya wada leeyahay isla ogol yahay horta ha samaystaan markaasay laakiin hadday ka qariso adoona taadii aasaaskii aanan hayn tu kaloona jirin baan sameynaya haddaad tidhaahdo marka waxaan u arkayaa ka dhuumasho laga dhuumanayo xaqiiqda waaqiciga ee meesha taalla oo lagu qarinayo waxaanan jirin oona la gaari karin oo ah midnimo Soomaaliyeed baan raadinayaa midnimada Soomaalida markii aan raadinaynay 60kii 5 Soomaaliyeed bay ahayd 2 Soomaaliyeed ma ahayn mushkiladda Soomaaliya ka aroosan horta waa ummad dal iyo durukooda noolan jirtay buuro uma dhaxeeyaan wabiyaal uma dhaxeeyaan wax kale joojinaya ma jiraan oo muxuu ahay wixii dhibaatada halka ka dhacday halkana waa soo gaaraysaa xagga ka timaadana xaggana waa gaaraysaa midda ugu horeysa horta marka ugu horeysa xagga madax bannaanida Somaliland iyadoo inuu taariikhdeeda ka warqabno sida marka hore Israaciil ku yimid waqtiyaasha ka mid ahaa oo aynu doonaynay in dadka ama Soomaalidu doonaysay in wixii af Soomaaliya ku hadlo dhab isu yimaadaan baa jiray markii waqtigii xorriyadda la qaadanayay lixdanaadkii laga qaadanayay koonfur ahayd Talyaaniga muxuu ahay xiriir la lahayd waqooyiga Ingiriiska ahaa Ethiopia Kenya meelo badan Francisco Djibouti noqotay way jireen waqti aynu doonaynay in Soomaalidu dhab isu warato wixii la dhihi jiray shanta Soomaaliyeed dareenkaas u xambaarsaneyd tii Israaciil u xambaarsaneyd laakiin waan ognahay taariikhdii markii ay inoo geysay dagaalo fara badan oo in wadamada jaarka la gallo oo Kenya la gallo oo Ethiopia la gallo oo cid walba la gallo waa tii arrintii shaqo weyday waxaa dhashay heshiis ama dareen ah in cid walba halkeeda ay ku noolaato. Republic of Somaliland received its independence from the United Kingdom 26 June 1960. Notification of that independence was duly registered with the United Nations and 35 countries recognized Somaliland. Somaliland voluntarily united with Somalia 1st July 1960 to form the Somali Republic. The union was not legally binding as the act of union was never formally signed. Therefore, the unification effort fell short of the requirements mandated by domestic and international law. From the beginning, the union malfunctioned as Somaliland people were hugely oppressed. The people of Somaliland expressed their displeasure with the union by overwhelming voting against the new constitution in the referendum held in 1961 and followed full-scale struggle against the Somali Republic. The result in the collapse of Somali Republic in 1991 and the restoration of the independence of the Republic of Somaliland 18 May 1991. والله أحمدو بالمركة وغوريسا مدة تترير Somaliland أي دوريا حرية الإقاطان وأحزاب بيوكرا بحين مركة وحا حلفاء نقضي لبدي حزبي SNL USB marka bishii February 60kii ayaa doorasho halkan laga qabtay labada xisbi ku guuleystay baarlamaanka marka baarlamaanku wuxuu magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo Prime Minister magacaabay iyo 3 wasiir Cali Garaad Jaamac Axmed Xaaji Ducaale Axmed Keese iyo Xaaji Ibraahim Nuur afarta wasiir ayaa la magacaabay marka anugu waxaa soo dhacayaan waxaan jiray London baarlamaanka Ingiriiska ayaan ka baranayay xeeroosaadkiisa bishii April 30keedii ayaa Prime Ministerkii 3 wasiir noogu yimaadeen London anna markaa koorskii waa dhamaaday waxaa la socdo xogayn la socday Allah yarxamay Maxamuud Cabdi Caraale anuu markaa waan soo baxayay markaa bisha 5teedii baa la kulmayay oo wasiir al-mustacmalaadka la kulmayay markaa bisha 5teedii ma May ba May bisha 5teedii May haa iyo 30kii April bay noo yimaadeen 5tii May galkii dambe 1960kii haa Maxamuud Cabdi Caraale waxaan ku iri anuu galabta 5tan baxaya bal waxa lagu heshiiyey
soo deg oo ii sheeg shantii baan meeshii tegay wasaaraddii isticmaarka uu soo degay wuxuu waxaa lagu heshay 26 Juun in xorriyadda Soomaaliya la siiyo protectorate ay xorriyaddooda qaataan iyagoo dalbaday inay Soomaaliya israaci doonaan oo taana laga oggolaaday marka waan soo dhoofay habeenkaas maalinta dambena halkan joogay bal warar markaasi 26 Juun 1960 hadda 50 sanadood baa ka soo wareegay in sidee bay u dhacday bal xusuustaasi dadka haddii aad sidii damaashaadkii iyo calansaarkii ugu horreeyey dee calan Soomaaliyeed oo xor ah ugu horreeyey oo ciid Soomaaliyeed markaas laga taago horta marka ugu horeysa calanka Ingiriiska dee saarraame marka calanka Ingiriiska galabtaas la dejinayay caada Ingiriisku wuxuu leeyahay meesha calankooda la dejinayo in ay music ku jiro magaraysa xasan ku jiro inay garaacaan macni murugo ku jirto ereygan doonaya waa kaas marka koox waa laga keenay koox kuwa music garaaca cadan laga keenay oo kuwaas caada waxaa kaloo Ingiriisku lahaa marka calankooda ay rogaan inay dib u gurtaan calankay wataan aan soo jeesan ilaa 10 tallaabo dib u gurtaan markaas sidaasaa dhacday kooxdaasaa timid oo calankii bay soo rogeen muusiga murugada ah ay tumeen hogol bara waaweyn ayaa nagu daaday dadkii meesha joogay meesha way buuxday halkee bay markaasi hargeysaa waxay ahayd meesha iminka Ibrahim Dheera ka dhisay masaajidka ee loo bixiyay 26 Juun laakiin iminka Ibrahim Dheera masaajid weyn ka dhisay markii ay calankii saa u soo dejiyeen ayaa qolo inanka oo yar askara ayaa tagto Kenya saartay calankii saartay saasaa ciid Somaliland markii ugu horreysay ciid Soomaaliya leedahay looga taagay calankaas in markaa maxaa dhacay ka bacdi habeenimadiina waxaa la wareejiyay instruments of power ayaa wax la yidhaaho yani waxaa la kala qaatay dokumentigii loola kala wareegaya xukunka magaraysa oo maxamed Ibrahim Cigaal iyo ninkii chief secretary ahaa barasaabka hore u dhoofay magaraysa ay la kala wareegeen habeenkii 12 dhacday marka halkan beerta xorriyadda la yiraahdo habeenka la faanteeda xaflad baa lagu qabto marka calankii laga saaray halkan xaflad baa lagu qabto calankii laga saaray subaxii dambe waxaynu ahayn xorriyadda haysan in bal jawiga ka waran markaasi iyo gabaygii Cabdilaahi Suldaan halkaasi uu ku sifeynayay oo ka tiriyay iyo jawigii markaasi aad goob joog u hayday aad joogtay Axmedow in sidee bay ahayd markaasi maxay dadku hiyigooda dadku iyo dareenkooda muxuu ahaa Cabdilaahi Suldaan horta meeshii calanka lagu rogayay oo lahaa ka nasiib kana saaro ayuu joogo galabtaasuu tiriyey gabaygaas dadku de waa dadka roobka ku daaya isla qaarjinayn farxadda ka muuqata aad yaabaysa weeye jawi wanaagsan dad xoroobay ayaa meesha ka muuqday. Bring you greetings from my country, Somaliland, a country in the Horn of Africa that you probably have never heard of because it doesn't exist on your map. It's a former British Somaliland protectorate. It's next to former French Somaliland, and I will point it. French Somaliland, British Somaliland, and La Somalia Italiana, and Mogadishu that you all know about. I come from here, Somaliland, which is peaceful, stable, a country that I have returned to 22 years ago when I retired from the World Health Organization. Between 82 and 91, there was a civil war. Our cities got flattened, bombed. Mass graves got filled with the bodies of innocent victims, mostly children and weak women, those who could not run away from the bombs, because cowards always pick on the weak. And at that time, I was a very senior diplomat in Djibouti as the representative of the World Health Organization
an organization that I served for 32 honorable years, and my country had nothing. Homes destroyed, hospitals destroyed. 250,000 people died, and 1 million people sought refuge wherever they could in the world. Many went to Ethiopia, next door. Many came to your shores and came to other countries in Europe and America. Our people got scattered. Our people ran wherever their legs could carry them. And many brought children. And at that time, there was nothing I could do. But in 91, when Somaliland separated from Somalia and peace returned to my country,